kormeerkay aan ku mareynay Bacadweyn oo xafiiska deegaanka Bacadweyn gudoomiyaha Bacadweyn wuxuu ka warbixiyay intuu hayay wuxuu qabtay wuxuu aan qabsoomin warbixintiisu aad bay u fiicnayd ma sha Allah laakiin waa warbixin la xisaabtami doono oo la jeegarayn doono sidaan hore u sheegnay anagu Bacadweyn waxaan u joognaa inaan ogaano waxa ka socda iyo waxa aan socon iyo waxa u socon waayeen maamulka gaabisa bulshada gaabis ah dadka ma rabeen wax loo qabto waxaan soo aragnay meelo badan oo dayac badan ka muuqdo waxaan soo aragnay waxyaalo yar yar oo reer Bacadweyn ay qabsan karaan haddana aan la eegin in la qabto maamulkuna uu soo kicin bulshaduna ay soo kicin su'aaladan soo qaato waxa kamid ah isbitaalka weyn deynama yar baa ka xaliman ceelka dhamaan u shaqeeyo deynama in loo qeyl dhaansho degmo iyo dawlad dhexe uma baahna waa isbitaalkii biyihii lagu meedka lagu dhaqayay hooyada umusha lagu dhaqayay wax yar oo deynama basiid ah kacdoonka hadda magaalada ka jira dhanka wanaagsan hadduu u kaco deynama iska daayimo toraa la keeni karo inta oday isku soo baxday ilaa maalintii nala doortay kacdoonka waday haday dhanka wanaagsan u isticmaal lahayn wadooyin baa magaalada loo furlaa hal wada magaalada ma haday dhinaca fiican u isticmaal lahayn islaamaha bacad kelib ku gaday bay ka kicin lahayn suuqa dayactiran lahayn oo caafimaadkooda carruurtooda iyo ayagooda ka shaqeyn lahayn haday dhanka fiican u isticmaal lahayn saldhigan faaruqaayo ay ku haysan waayeen ciidankii bay u qareemi lahayd wax kala tarin waxaan rabnaa in dhanka wax qabadka loo dhaqaaqo bulshadu ay wax qabsato dadkuna ay wax qabsadaan hal iyo laba maalin wax qabta aniga duqa degmada hadda in la hadlay hadaan bulshadu ila shaqeyn hal haba ma qaban karo nin kasto oo la keeno Bacadweyn hadda maanta waxaad isbedel doon baa rabtaan oo waad kacsantihiin oo maamulkana la ka qaado waa waray baad ku haysaan bari labada la keeno haddiina la shaqeyn hal haba ma qaban karaan maamul bana la qeyliya ma anagu shirar baan qabanaynaa bulshada qeybaheeda duwan oo dhan waa kala duwan oo la shiray culumaaduunkan la shiraynaa odayaashan la shiraynaa dhalinyaradan la shiraynaa haweenkan la shiraynaa ganacsatada la shiraynaa maamulkan la shiraynaa booliskan la shiraynaa bulshada qeybaheeda kala duwan oo dhan baan la fariisanayna waxaanu kala hadlaynaa waxa weeye horumarka Bacadweyn maamul dhisidu waxay noo tahay muhiimadda ugu dambaysa boqol muhiimadood oo ka weyn baa jira waxaan isku dayaynaa dhowrka bari aan joogno waxyaalaha aan soo aragnay waxa muuqdo iyadoo laga qabtay waxana aan u balansanahay inagu reer Bacadweyn iyo degmada iyo isku duban oo diyaar ah oo waxa qabsi aan u diyaarsanahay inaan ka tagno meesha waxana inaad ku qabsataan wixii anaga nooga baahantiin aan la qaban waxyaalaha hadda aan soo wada aragno dhan waa basiid waa wax aad u fudud oo bulshadu ay qabsan karto hadii bulshadu kacdo oo ay daacad u tahay inay wax qabsato waxyaalaha aan soo aragno dhan waa la qaban karaa anaga ka degmo ahaan taageeradeedu waa diyaar waxaan awoodna anaga qabanayna waxaan awoodina meelaha ay jiraan baan ka raadinayna qolo kasta oo aan u tagnayna baahideeda waan qornay qolo walba aan la fariisanana baahideeda waa qornay hadii la hayna qolo kastana waxaan ka dhigaysanaa warbixinadeeda jaamac warbixintiisa hadal kaliya looma baana jaamac qoraaladii aad sameysay iyo warbixintii oo qoraal ah waad nala wadaagaysaa wax alla wax warqad ah ka qodhay cadeyn leh oo evidence oo leh waad nala wadaagaysaa qolo walbana runta loo sheegay reer Bacadweyn qolo kasta runta loo sheegay haday odayaasha tahay runta loo sheegay haday ganacsatada tahay runta loo sheegay haday maamulka tahay runta loo sheegay qolo kasta dhalisheeda qaadanaysa wax isu wanaanaya mar yabaq iyo buuq dambe oo aroosana looga tagmay magaalada isu wandamana badhaas haduu maamulku dhalin leeyahay runta loo sheegay waana la bedelayaa geed ka baxay maamulka meesha odayaashu haday dhalin leeyihiin oo maamulku intuu u soo gudbiyay wax qabad iyo hididiilo iyo qorshayaal ay ka qayb qaadan waayeen meelna marin waayeen runta loo sheegay magaalada buuq ka daayay leeyahay idinka shaqada hor taagan
ganacsatadu hadday horumarka magaalada ka qayb qaadan waayeen canshuurta bixin waayeen contributionada lagu qora bixin waayeen runta loo sheegayaa waxa magaaladu ay xaq inuu kugu leedahay bixiya baa la leeyahay annagu waa wada fariisanaa waa wada hadlaynaa muddaynu wada hadlaynaa qolo kastana gaar baa loo kulmaynaa